السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. photo editing waa mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan marka la isticmaalayo ama aad tahay video editor ama graphic designer. sidoo kale videographer marka tahay muhiim ayay ku tahay 100%. sababtoo ah marka aad muuqaal duubaysid waxaad qaadaysaa sawirro kuwaasi oo u baahan tahay inaad hadhow wax ka bedeshid. casharkeena maanta marka wuxuu ku saabsanaan doonaa sida loo qurxiyo sawirrada. waxaan idinku tusi doonaa habka ugu fudud ee aad sawir ku qurxin kartid adigoo isticmaalaya Photoshopka. magacaygu waa Aftax Xuseen Aftax Bulsho. ku soo dhawaada muuqaalka. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad halkan u soo booqatay ha iloobin inaad subscribe noo saarto channelka isla markaana aad rukumatay gambalaalka. haddii muuqaalka aad ka heshay like saar isla markaana u share garee saaxiibadaada. mahadsanideen. marka ugu horeyso sawirkeena habkan ayuu wuxuu u yahay mugdi. marka waxaan rabnaa in aan sawirkan wax ka bedelno. marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa horta waxaan koobiyeysaneynaa qaybteena layerka ah anoo isticmaalayno Ctrl J. marka Ctrl J aan dhahno waxa ugu horeyso aan sameynayno waxay tahay waxaan kow aan tagaynaa layerkan kor ayaan dooranaynaa kadibna waxaan tagaynaa qaybta image waxaan kasii tagaynaa adjustment halkaas ayaa waxaan kasii tagaynaa marka brightness and contrast. marka inta aan tagno qaybtan iftiinka ama brightnesska ayaan ku dareynaa marka anagoo gaarsiin doono ilaa inta aan isdhahno waa macquul. ilaa halkan ayaan gaarsiinay. saa ujeedin xogaa uu soo nuuray sawirkeeni. marka u horeyso sidaan ayuu ahaa haddana sidaan ayaan ka dhignay. okay optionkeena labaad waxay tahay anagoo halkeena joogno ayaa waxaan tegi doonaa haddana filter kadibna waxaan tegi doonaa camera raw. halkan marka aan tagno waa halka ugu muhiimsan ee sawirkeena aan kasoo qurxin doono annaga oo kusoo dari doono xogaa color ah ama qayb kamid ah colorradan maadaama hadda wejigiisa white u yahay xogaa inuu macnaha maxaa la jiray aan soo celin aan ku sameyno. okay marka intaan sameyno qaybtan saturationka ayaa xogaa aan dib u yara jiidaya u yara celinaya xogaa guduud ayaan soo gelinaya. qaybtan contrastiga ayadana wax yar aan ku darayaa maadaama hadda wax shadow uusan jirin xogaa shadowgan hadda wejigiisa xogaa shadow ku jiro waxyar shadow inta oo yara wadaaya highlights asaga ma jiro waxba saana duuya asana xogaa oo ku yara dareysaa. okay intaan markaa sameynay kadibna okay ayaan iska dhihi doonaa. saa ujeediin hadda xogaa sawirkeeni uu qurxan yahay sidaan ayuu ahaa haddana sidaan ayaan ka dhignay. okay waa farqi weyn. alright option ku sii xiga waxay tahay waxaan soo qaadanaynaa qaybtan selectionka ayaan tagaynaa right click waxaan leenahay quick selection. marka intaan dhahno qaybtan xogaa waa iska yareynayna anoo bracket ama close bracketka isticmaalayno. okay waa iska yareynayna anoo open bracketka isticmaalayno. kadib waxaan sameynaynaa qaybtan ayaa xogaa wejiga ayaan dooranaynaa haddana qaybtanna waa ka dooranaynaa gacmahana sidoo kale waa dooranaynaa intaan waa dooranaynaa xogaa gacmaha si aan ugu celino waxaan tagaynaa qaybta minuska kadibna ilaa inta fanaanada ah waa lafta kaliya aan lahaay waa iska celinaynaa. okay intaas anagoo haysano ayaa waxaan sameynaynaa waxaan tagaynaa image kadibna waxaan leenahay adjustment kadibna hoos ayaan u jiidanaa waxaan leenahay selective color. marka intaas tagno halkan ayaan tagaynaa qaybtan oo yellowga ayaa dib u yar celinaya waxaan rabaa inaan kalarkiisa soo saxo kadib qaybtan yellowga aan tagayaa kadibna xogaa kana dib u yar celinayaa waxyarkana waxaan badna inaan dib u celinayaa. okay marka intaas aan tago kadibna waxaan leeyahay okay markaan dhaho waxaan tagayaa qaybtan oo ah select kadibna waxaan leeyahay inverse markaan dhaho haddana waxaan ku laabanayaa qaybtan oo imageka ah kadibna waxaan leeyahay adjustment kadibna waxaan leeyahay selective color. qaybtaan furayaa haddana waxay iska bedelin black ayaan tagayaa kadibna waxyar aan ku dirayaa si ay timaha ay xoogaa u yara madoobaadaan. okay alright okay ayaan leeyahay waa baxayaa haddana waxaan tagayaa qaybtan kale ee macnaha waxaa la diray filterka kadibna waxaan leeyahay color waxaan tagayaa camera rawga. marka camera rawga aan tago qaybtan aan ujeedno temperatureka ayaa xoogaa dib u yara celinaya. alright aan badnayn si uu backgroundka dambe xoogaa isu yara bedelo iyo fanaanada hadda fanaanada zaaid hadaan dhao saasay noqonay. marka waxa yar intaas ka yar dhigaya fanaanada ay soo yar nuuriya ayadana meelahaas camal iska geynina adi waxa yar minus awirtaan ahaa hadda aragteen 0 ahaa waxa yar inta ku celinayna marka. okay alright okay kadibna waxaan leeyahay okay alright marka waxaan rabaa markaan in t-shirtiga bes ay ii doornaato ayaan rabaa sida t-shirtiga aan wax uga bedelo. Ctrl D ayaan leeyahay kadibna waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa balaskaas
kadibna t-shirtigi bes aan dooranayaa. Alright, t-shirtigi bes aan doortay sababtoo colorka t-shirtiga ayaa waxaan rabaa xoogaa in aan waxyar ka bedelo. waxaan tagayaa marka qaybtan ay ku qoran tahay image, kadibna waxaan leeyahay adjustment, kadib waxaan leeyahay selective. qaybtan aan furaya buluuga ka dooranaya, kadibna xoogaa balaagan aan ku dirayaa. alright, hadda intuu celi maxay noqonaysaa white. okay good, xoogaa saan ayuu daag oo yar dhigaya. okay alright control d haddana. okay, saa hadda ujeedid sawirkeena awal sidaan u ahaa, haddana sidaana ka dhignay. oo farqi weyn marka udhexeeya. haddaarta waa sii caddayn kartaa oo waa sii qurxin kartaa. marka haddii aad rabtid inaad adi colorkan aad qofkan aad zaaid ka dhigtid ama colorkiisa aad jaale zaaid ka dhigtid ama aad u cadaysid, you can do it. waa samayn kartaa adigoo isticmaalaya still quick selectionka, kadibna sida caadigeed wejigiisa harta in wax ka bedeshid iyo gacmihiisa meesha ku celinaysaa, kadibna waxaad soo qaadanaysaa qaybtan balaaska ah. inkastoo sawirada zaaidka qofka u cad ama macnaha xali jiri kalkiis u bedelo aan rabin, marka waxaad samayn kartaa waxaad tegi kartaa qaybtan adjustment selective, kadibna qaybtan yellowga tegi kartaa, dib aa u celin kartaa yellowga. okay, aa celisi dib aa u celisi. okay, qaybtan guduudkana tag, dib u celi. alright, very wide aa ka dhigtay qofkii ujeedaa sooma, very wide aa ka dhigtay before now. okay, kadib wax yar oo color aa kusoo daraynaa, filterka ku laabanayna, kadibna waxaan leenahay camera row, kadibna xoogaa yar aan ku dareynaa soo qofka wejigiisa oo yar qurxanaado. korora tag, exposure-kan waxay ku dar. alright, halkaas exposure-ka aan tagnay, kadibna okay aan dhigi karnaa. marka farqi weyn aa u dhexeeya labadaas sawir saa ujeedid. qofka haddii aana naashid adiga waa macnaha waxa la jiray waa iska naashi kartaa, waqti badanna kuuma qaadanayso. marka u horeyso waxaa muhiim ah inaad iftiinka soo ziyaadisid hadduu iftiinka ku yaryahay. laba, waxaa muhiim ah inaa macnaha maxaa lii jiray wejigiisa aad colorkiisa soo celisid adoo isticmaalaya saturationka, kadibna inaad colorkaas aad ka dhintid si markuu la soo qabsadana aad saturationka mar kale aad ku celisid. marka intaas waa samayn kartaa. sawirkan hadda iyo sawirkan farqi weyn ayaa u dhexeeya. saa ujeedin awal mugdi 90% ayuu ahaa, haddana waa kaasaa waa sawir qurux badan oo qof aa u diri kartid ama aa qaadan kartid adiga oonan ka babadinin. haddii aad jaalo badan ka dhigaysid ama kalar badan aad ku daraysid iyo uu halaabaya sida hadda teleefanada waxyaabaa lagu qurxiyo kale. laakiin normally sawirada caadiga ah oo marka ama shirkado ama aad la shaqaynaysid hay-ado ama aad dad noocaas kale la shaqaynaysid, kalarka zaa'idka ah oo jaalaha zaa'idka ah oo qofka laga babadiyo lama rabo. wax oo iska normal ah qofkeena wejigiisa uu qurxan yahay mugdin uusan ahayn ayaa inta badan la qaataa. marka waan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. iloobin inaad subscribe noo saartay channelka fadlan. haddii aad muuqaalka ka hesheen like saar una share garee saaxiibadaada. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.